هذا كمدين صاحبه هره وصار سبسكرايب قناتك هذا سبسكرايب صار تابو ماشي جدا ابا عصفر كتابه بعد جنبالك كوسو بحايا جيسك سبسكرايب وانت فرت كتابه لايك تنهي اللعب كسو كونكان aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhagayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan arbal warra waxaad war haysiin nabad gabni laakiin walni dhaajir warrabaya war baan idin haya abwaan maxamed zaaleyra wuxuu yiri waa barigii horreeyay mas'uul baawarka haysto xil ballaaran la siiyay magaaladeena banaadir barqadii ka qudbeeyay waa barigii horreeyay buskut suuq laga iibshay waa barigii horreeyay bariga Afrika laga fulay bajaaj waa barigii horreeyay Eritrea la booqday waa barigii horreeyay Prime Minister la doortay oo Itoobiyaana bariidshay wartaasu way iska bilaashay waa barigii u horreeyay oo cirka roob ka butaacay biyo dhoobay xareeda war maalintii ka horreeyay bilaan kuriyar orosaw nimayo saasma hora waxa loo yiri bursaliid nimo bas lahayn muku bashaalayo waa markii u horeysay ee dhalinyarada ay dareemaan in ay wadan leeyihiin waa barigii ugu horreeyay oo baahi aan la fadhiiso baaga muurdo dareemay hoy baaco bajaaj mawtido maxawaad baraka beela bataatan dayaal oo bataata haysto baahda faday war beeraha uu fasho duudkiisa intaas u dhan yahay maxamed sidaad baraan ka diidnay beeraha fasha cid kale naga yeelmeen tuugsaa waaye war shabakadihii wax biinta iyo baabiintu way nagu soo bateen maanta daacish iyo shabaab baa nagu baratamaya daacish tawayna Suuriya joogta bayaan ay soo saareen waxayna u direen al-qaacidada Torabora waxayna uga dacwoodeen al-qaacidada Soomaaliya u joogta ee al-shabaab waxayna ku hanjabeen inay baabiin doonaan al-shabaab hadii aysan ugaarsiga ka joojin daacishta Soomaaliya waligay ma maqal Soomaali Torabora looga dacwoonayo laakiin al-shabaab in la baabasho waa ku raacsana wari hadda Torabora qorgaana hatta Torotoro lukin kuweere Allah waxay hadda baadin la soo waco warnimayo waxa la diina habartuga ku tashatay waxayna ku heshiiyeen inay cunaan diinkii waxa loo sheegay akhbaartii habartuga ay ugu tashteen diinkina wuxuu yiri meesha ay ugu tashanayeen soo ilaahay ma joogin ilaahayna qolofka aad aragteen weynu ku daboolay diinkii marka meesha daacish al-qaacida ay noogu tashanayaan soo ilaahay ma joogo nimayo hora waxa loo yiri war galay ma naqahayo war nimanku annaga nooma kala wanaagsano waana dilayeen inay isdilaan soo dan nooma aha wariya lama marada meeliga dagaalantay isaka baabay horeba waxa loo yiri allow laba dibi isku jaanqaad oo mid noo jibi aan tirtirano jiirka kala baxneen hay soo ka reebeen kay soo reeban baanuguna reebi doonay warnimada balaayooyinka aniga inta way igala badan yihiin erayada macaan ee abin nagu ikbaarayo iyo oramada eheladii weerarka u aaday labadaas ayahay dhashaan la arki doona xabad kama fahmin aniga oramo ma sheegin adeer kuma qosayso waxa la yiri nabad iyo markii nolol la helay ee la wada naaxay naaq barbaa jiray ayana dooda soo naqay warniyo gowdaada waxba kama fahmin waxaan u maleynaa markii xaqiis inuu la shaqsaakir warniyo warkaaga waxaan u fahmay habartii ducdooda daruuruhu ka horeen dadku wada hel moodo dad warracay tiri ayaduna waxba ma haleeno waxay aragtay sheegtay war ma haysiine Cornel Gabra xabsiga ayaa loo taxaabay kaligiisna ma ahan 8 saraakiil oo inta badan Soomaaliya dhibaato u geystay ayaa la xiray marka nimanyo bur iyo biyo loo kala baxaya intii dambi naga gashayna waa eedi doonaan war adeero Gabra waa lacagaystay kuwa baahan baa lagu bedelayaa maxaa ku kordhay geeska Afrika nabad baa ka dilaaday dadkuna way wada noolaanayaan war Gabra ma farmaajo xilli ka qaad war farmaajo iyo Abiy Ahmed way soogiin warnimiyo ani warsiin haay gujudi koonfur galbeed la kahay walka gudibi marqaw doorashadii hadii asalari gudigi hata ka hor isaasiri dib la magacaabay aano kala mayka heesay abwaan meelirooga martilay koyti ma koyne tumani lamaade galanjele kase martilay koyti ma koyne tumani lamaade galanjele kase yali war murun tan yana murugna ba mar dhow walgo bada doorashadeeda ariiro in qarawti inda waayta toosti koonfur galbeed inda waayta toosti koonfur galbeed war xildhibaan fiqi wuxuu yiri qaraxyadii hotel saxafi ka dhacay shirqool bay ahaayeen lala beegsanay aniga iyo xildhibaano kale waxaana soo abaabulay
shabaab iyo dawladdoo isku dhex jira sababtoo ah hubka iyo dariiska ugu jiray shabaabkaba dawladdaa lahayd marka anugu waxaan la yaabana xildhibaanku habeenku xasan shiikh ballanka inta la galay uga baxay isagana inta farmaajo ballanka la galay uga baxay afka waa isku dari lahayaa kabacdi xaben laga xaday xaalkii waa shibe maxaa xildhibaanka waalay ma iska aamusa waa la fahmi karaa meesha laga hayo damqanayse war labada isku dhex jira u sheegay ma dawladda shabaab ku dhex jirta mase shabaab baa dawladda ku dhex jira midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war waa la bedelay gabaygaasniyo midba hub ha qaatiyo weji xirasho gooniyahe shaki male inay laba argagixiso isdilayaan war booliska Kenya shabaab ay lacag ka qaateen ayay gudaha u ogolaan si qarxiyo u geystaan war waa tii balad xaawal laga ceeriyay shabaab xaasaskoodii iyo caruurtoodii iyaguna waxay yiraahdeen hadiina la ceeriyo waa go'doominaynaa war xamar aan la go'doomin karin maan ka ceerin caruurtoodii iyo xaasaskooda war xagee joogaa hal ceeriyo ma xume su'aashaas awalan ka baqayo anigu inuu ugu soo laabato war macallimiintii Maryam Qaasim markii qandaraasi go to school ay qaadatay howlgelisay oo la yiri mustaqbalka waxaad noqonaysiin mushaari rasmiya waxay yiraahdeen markii xuquuqdeena la helay ayaa waxaana la yiri go to home kadibna waxaa la qortay macallimiin kale war markii hore waa tii la yiri go to school ma markay muddo soo shaqeeyeen ayoo xuquuqdoodii la siin la yiri go to home say ku dhici kartaa war gabaar deeb karafadii muraadiyay deeriya la danto bilka deeri go to huwa wala ere waraa waxa loo yiri dafa hadii malab loo qabeeyo galar miisku bedelays abadan way war goodaha ma taqaaniin go to home sheegaysana go to hell ayuu leeyahay rabo go to school ma waxaad ka wadaan iskoolka ardada u googooydo war bayle wasiirka maaliyadda waxa la yiri xisaab xirkii 2017 ma keenin tii 2018 ma keenin hadda 2019 miisaaniyad loo ansixinayo ma jirto war bayle lacagtii ma uusan xisaabin idna ka yeeli ma anigu yahay sheeg war warkaasi socon maayo xildhibaanadu macaamil waa yaqaanin baylena waa la macaamilaya war wili sheebel ma aamilo ilaan deengabale deengnan ka darna abadan war maamul goboleed muxuu leeyahay wasiir bayle xisaab xir ha keenaan hadii asagaba uusan keenin xisaab xir war madaxweyne caaf tan iyo markii cadaalad laga doortay in la yiraahdo baasto dambe liibi keeni karo yiri war maadaan maqal madaxweyne baastan ku nacay baga moodaa war warkii hore war soo dhaaf waayeel qorof lahaali mid la yiri wariyii Jamaal Khashoggi dilkiisa wuxuu ku cadaaday bin Salman dhimasho suuga Sacuudiga war dhimasho sugihii Sacuudigu ma dambiilu noqdo asaga cunay hilibkii wariyaha war madaxweynaha Filibiin waxa la yiri shirar badan ayadoo laga sugayo si seexday war gaadriyeysnaay hore waxa loo yiri nin saxdo saciid dibiye nasha war yaaya dharka waa yasaabaa li ruuxi waalan markaad waala jirtaan la gaaray ordaha naga tagay marka isku duufeen dariishadan ka dayaa isku duufeen dariishadan ka dayaa lama dabaa isku duufeen dariishadan ka dayaa